بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا الحمد لله ولا ليال إلهي جل وعلا أيامها تسكاله naga dhigay dad muslimiin ah haddana naga dhigay ummadii nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam. ilaahay jala wacalaa wuxuuna leeyahay wixii aad u horumarisaan nafafyaalkeeni oo khayra waad helaysaan, ilaahay agtiisa ayaad ka helaysaan beri qiyaamaha, isagoo ajar weyni badan ayaad ka helaysaan. saas daraaddeedii meel wax lagu xawiishto waxaa ugu kheyr badan aakhirada in wax loo xawiishto, in xataa caruurtoodii aynan u haynin dhar ciid aynan u haynin. marka waxyaabahaas oo dhan runtii waa danqanay markii aan aragnay axwaashoodii. marka arrintaasna waxaa u taalo muslimiinta meel walba ay joogaan in takaaful uu ka dhexeeyo, inay iska faalo qaadaan, inay iscaawiyaan, inay iswaxtaraan, inay isu gurmadaan. waa waajib muslimiinta saaran weeyaan. haddana may fadaan ayaalkan iidun dharlaagu dadka bersheelisi doqoshinka iyo dadka oo qaamka ka dhaman bershe hadda mana deeraan ni yarin way ki yaraasday walba ma ee laakiin iidun dharki iido sidoo ayaalka ninka iido sidoo fadaan dugsi ma qobna isgool ma qobna biyo ma qobna un dhibaataysana eedna galan qobo ya fadaana. marka mida kale markaan u gurmanayna anaga walaalaheena dhibaataysan ilaahay baa noo gurmanayo, markaan caawinayno walaalaheena ilaahay baa na caawinayo, markaan u kaalmaynayno walaalaheena ilaahay baa noo kaalmaynayo subxaanahu watacaala. bal fiiri allah inuu kuu kaalmeeyo maxaa ka wanaag badan? ilaahay inuu kuu kaalmeeyo waxaad ku heli kartaa walaalahaaga inaad u kaalmaysid. waayo nabiga ayaa yidhi sala allahu calayhi wasalam wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi. ilaahay jala jalaaluhu wacama nawaaluhu walaa ilaaha gayruhu. ilaahay addoonka ayuu u kaalmaynayaa intuu addoonkaas walaalkiisa u kaalmaynayo. ku bishaarayso ayuha almuslim wa ayatuha almuslima, qofkaan muslimka ahow gabadhaan muslimada ahey ku bishaarayso haddaad walaalkaagii u kaalmaysid in allah uu ku kaalmaynayo subxaanahu watacaala. waa noo jeedin qaabkaan u naalno roobka nagu qobana waa u jeedin waxaan haysana ma jirto, musqulo ma haysano. canuga inta markas ku haaray inta keenta la faaga badil lagu faaga mise kab lagu faaga ama jaqaf lagu faaga oo xarkiisu ku duugoyna biyana ma haysano. meel dheeran sadaada aga soo aroorana qutulyoon ma haysano. dhar iid abashaga ninkii oo dhargalle horta iid ma raadinayo, iid maba u kanshahayna ba saa hadii dhuuntii wax u laanay goorman dhar iid dadaysanayna. nin walba kiis qabalees markaas xafuujisan hadis oo ma uga asku tukanas masaajidiyaha la aada hadid noo keentina alxamdu shukri rabbil caalamiin os ilaahay noogu siikiin dhiibo. hay-adaha samafalka waxaan ku codsanaynaa anagu sida haddaan u naalna waa u jeedin inaad gargaar xoog lana siisin. marka walaalayaal dadkaasayta inaan garab istaagno, dadkaasayta inaan u gurmano, inaan u wada kacno ayaa la noogu baahan yahay. runtii dadka kale aan ku halaynayno ma jirto. anagaa la rabaa maadaama walaalaheena ay yihiin inaan u wada gurmano, inaan taakulayno, inaan gacan siino. ma arkaysa ilaahay sidii uu noogu naxariisan lahaa anagana subxaanahu watacaala. marka walaalayaal qofkii wax soo diri karo ama meel walba ha joogee nambaradaas iyo akoomadaas uu kusoo hagaajin karaa, anagaa gaarsiin doono biidn illaahi jala wacalaa. marka insha allahu tacaala waxaan isugu dhiirigelinaynaa inaan mar walba aan ka qayb qaadano khayrka iyo wanaag aan ka qayb qaadano. marka insha allahu tacaala waa ka walaalayaal wasala allahu wasalama wabaaraka calaa sayidina waxabiibina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin.